show askari ku duuriyo waloodhada ku doodiyo dhulkan dayra mooye maatida ka daamale anqalkiya daruuri cirkii roobkii noo da'ay daadkii qulquli jiray doogii ku soo baxay ayaxbaa ku soo degay weli shicibku doog raac iyo weeye doog nabad wixii daaqnaq noo baxay may daaqin xoolii dar quraa dalkii cunay waa daraf siyaasiya iyo diilka ganacsada inta kale durduro kibir ayaa lagu dabreeyaa koox quraa durduurto duqay iyo wadaadda leh dantii guud la wadagaday danyartiyo degraratadu gorgorkiyo dugaagyadan bal inay ku didiyaan hadba baaqaq soo direen laga soo bilaabo 14 December sanadkii 2017 oo ku beegneed waqtigu uu talada Soomaaliland qabtay hogaamiye Muuse Biixi Cabdi waxa uu wadanku wajahaya xaalad adag oo kala dambeeyay kuwaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhinacyada kala duwan ee nolosha shacabka iyo masiirkii laga lahaa dawladnimada Soomaaliland Muuse Biixi oo markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtooyada laga filayay rajo badan oo ay shacabku ka qabeen balse taas bedelkeeda xukunkiisu waxa uu bilow u noqday in Soomaaliland iyo shacabkeedu ay wajahaan xaaladihii ugu adkaa ee ka soo maray dawladnimada 30 jirka ku dhow ee ka tisqaaday Soomaaliland laba sanadood iyo badhow hogaamiye Muuse Biixi gacanta ku hayay talada Soomaaliland waxa soo shacbaxday ujeedooyinka qarsoona ee uu kala hayn inuu gaaro kursiga dalka ugu sareeya kuwaas oo aan laga dareemin waqtigii uu tartanka ku jiray ee mudanka iyo maatiduba u ololeynayeen waxaana haatan dibadda u soo baxday in hadafyadiisa ay ugu mudan tahay sidii uu qoyskiisu u noqon lahaa qani isla markaana uu si gaar ah uga faa'iideysan lahaa dawladnimada uu mas'uulka ka yahay muddo yar oo kooban oo xilka hayay madaxweyne Muuse Biixi waxa soo shacbaxday in dawladnimadii Soomaaliland ay noqotay mid ay ku adeegtaan dad aan loo dooran isla markaana ay u adeegsadaan gaarida dana gaar ah oo ay leeyihiin taas oo kor u sii qaaday dareenka taban ee dhex yaala bulshada Soomaaliland isla markaana su'aasha lagu galinayo wada lahaanshihii Soomaaliland maanta dhisan oo ka maran heshiiskii lagu aasaasay ee Burco ka dhacay sanadkii 1991 bartamihii sanadkii 2018 waxa markaliya soo shacbaxday koox xoogan oo ka dhex samaysantay xukuumadda hadda maqaarsaarka noqotay ee hogaamiye Muuse Biixi kooxdaas oo aas-aaskeedana ay wararku sheegayaan in madaxweynuhu wax badan ka og yahay ilaa hadda haddaba barnaamijkeenan ayaynu ku eegi doonaa maxay tahay kooxda Heego ee ka dhex samaysantay dawladnimada Soomaaliland inaga oo ku iftiimin doona halka ay kaga timid Soomaaliland maxay tahay sababta loogu bixiyay magacan Heego isla markaana kaga jawaabi doona su'aalo kale ugu horeyn haddii aynu eegno halka uu ka yimid magaca kooxda Heego waxa jirtay waqtigii uu dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka talin jiray Cabdi Maxamuud Cumar inuu sameeyay koox dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Heego kuwaas oo si gaar ah ugu adeegi jiray madaxweynihii dawladda deegaanka iyo sidoo kale qoyskiisa kooxdan oo si gaar ah u hoostagi jirtay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana ka qaadan jirtay xafiiskiisa wixii amar ah ayaa ahayd koox ku dhex milantay dawladda iyo shacabka kuwaas oo si toos ah u fuliyo qorshayaal uu dhigay hogaamiyahoodii Cabdi Maxamuud Cumar kooxdan oo lahayd dhaqan aad u foolxun ayaa adeegsiga awoodda dawladda deegaanka waxa ay hagardaamooyin iskugu jira dil dhac iyo musuqmaasuqba ugu geysteen dadka shacabka iyagoo sidoo kalena dhaawac gaarsiiyay nidaamkii dawladeed ee uu madaxda ka ahaa Cabdi Maxamuud Cumar haddaba kooxdan ka dhex dilaacday nidaamka dawladeed ee Soomaaliland oo calaamado badan ka matala kooxdii gumeysay shacabka isla markaana calankeedu dhacay ee ka jirtay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa keentay inay magaca la wadaagaan Heego ha waarto Heego ha waarto Heego kooxda Heego waa isbahaysi xoogan oo ay ku midoobeen xubnaha ay guud ahaantood bay isku deegaan ka soo jeedaan hogaamiye Muuse Biixi kuwaas oo u badan xubno si gaar ah iskugu bahaystay qoys ahaan kooxda Heego ayaa madax iyo mijabo waxay mabaadiidoodu salka ku hayaan danta qoyska hogaamiye Muuse Biixi kuwaas oo ku hawlan fulinta qorshayaal si gaar ah ay uga macaashiyaan dawladnimada Soomaaliland ee dhiiga lagu helo baadhis dheer oo aanu muddo ku wadnay inaanu ogaano xubnaha ku jira kooxda Heego iyo mashaariicda ay qaataan waxa noo soo baxday
in kooxdan isku xidhan ay horboodiyaan shakhsiyad ay ka mid yihiin mubaarak ismaaciil taani xogayaha gaarka ah ee hogaamiye muuse biixi cumar biixi cabdi oo ay walaalan yihiin hogaamiye muuse biixi maxamed muuse biixi oo ah wiilka curad ee madaxweynaha kooxdan heego waxaa ka mid ah 3 wiil oo walaala ah kuwaas oo abti ruma u yahay hogaamiye muuse biixi waxaanay kala yihiin ciise maxamuud ciise oo wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta kaga magacaaban agaasimo waaxeedka awoodda badan ee qorsheynta cabdiraxmaan maxamuud ciise oo ay gacan saar aad u weyn wada leeyihiin xogayaha gaarka ee madaxweynaha cabdiqafaar maxamuud ciise oo isaguna ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee kooxda heego cabdi yuusuf ar oo ah maamulaha shirkadda sagaljeed isla markaana ka mid ah xubnihii sida weyn u maalgeliyay muuse biixi waqtigii doorashada mustafa gacmo dheere oo la xidhiidha hogaamiye muuse biixi isla markaana qabay intiisa curad ee hodan muuse biixi cabdiqaadir camash oo haatan lagu qoray inuu ka howlgalo xafiiska dib u habeynta maaliyadda ee BFM-ka sidoo kalena gudoomiye ka ah mashruuca dhismaha maktabadda gabiiley kaas oo ay mashaariicdan u wada fushadaan mubaarak taani injineer ridwaan cabdiraxmaan oo uu abtirume u yahay hogaamiye muuse biixi xasan faarax maxamed madaxa xafiiska uu maalgeliyay baanka adduunka ee dib u habeynta maaliyadda ee loo yaqaano BFM maxamed ismaaciil ciise weli oo dhawaan la taliyo sare looga dhigay wasaaradda qorsheynta qaranka saciid cali jaamac oo ah agaasimaha maamulka iyo lacagta ee hay'adda wadooyinka maxamed cali baani oo ah madaxa mashruuca maamul daadejinta dowladaha hoose ee loo yaqaano JBLG maxamed ismaaciil oo ah agaasimaha maamulka iyo lacagta ee madaxtooyada xiis saleebaan oo ah ganacsade mashaariic badan shuraaka kula xubnaha ugu sareeya kooxda heego axmed abukar oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan sheekh xasan musaabiqo oo ku magacaaban agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maxamed xaaji oo xil sare ka haya wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo su'aali ka taagan tahay qaabka uu ku helay khadar baaruud oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex maxamed axmed jaamac calooley agaasimaha wargeyska dowladda ee Dawan cabdilaahi gacmo dheere oo ka mid ah qandaraaslayaasha macmiisha u noqday mashaariicda dowladda sidoo kalena dhawaan laga howlgeliyay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka kooxda heego waxaa sidoo kale qayb ka ah dhalinyaro ku midoobay ururka jiidali kuwaas oo haatan xafiis uga furan yahay xaafadda jigjiga yar ee magaalada Hargeysa waxaana horjooga oo ah Faysal Qumush oo dhawaan hogaamiye Muuse Biixi uu ku daray guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye dhinaca kale kooxdan heego waxaa qayb ka xubno qurbo jooga oo hab qabyaaladeed u abaabulan kuwaas oo had iyo jeer taageero la barbar taagan kooxdan gudaha ee maalaysa hashimaan deeq ay bulshada Somaliland dhiiga ku xoreysatay haddii ay xukuumaddu u taqaano in la ceebeeyay ama la caayay haddii aynu nidhaahno waa markayagii yaadan waa markayagii sidoo kale waxaa jira kooxo ka amar qaata xubnaha ugu sareeya kooxda heego kuwaas oo ka howlgala baraha ay bulshada ku kalanto isla markaana had iyo jeer bartilmaameedsada dhalinyarada soo bandhigaya fikradooda ay kaga soo horjeedaan dowladda Muuse Biixi kuwaas oo lagu dhuftay shaambada ay heega sidato oo tilmaamaysa in qofka la doonayo lagu eedeeyo inuu Somaliland ka soo horjeedo ama uu xidhiir toos la leeyahay xamar ilaalinta danaha qoyska madaxtooyada ee kooxda heega gaarka ka hayso ayaa keenay in dadkii ugu badnaa ee shacabka xabsiyada lagu hubsado hay'adihii ugu badnaa ee warbaahineedna loo xidho si aanay shacabku u ogaan boobka lagu hayo hantida qaranka iyada oo heeganka kooxdanina keenay in xataa xabsiyada lagu guro siyaasiyiin indheergarada oo ka tirsan xisbiyada u ciidiyo wadani iyadoo markii ugu horeysay in dacwad laga gudbiyay gudoomiye Faysal Cali Waraabe taas oo ay ka dambeeyeen qoyska hogaamiye Muuse Biixi gaar ahaan Cumar Biixi Cabdi oo la dhashay hogaamiyaha aan taladiisa la mahadinay haatan ku fadhiya kursiga ugu sareeya qaranka Somaliland iyadoo dacwadda gudoomiye Faysal Cali Waraabana ay timid kadib markii uu shaaciyay in Muuse Biixi uu qoyskiisa uga dhigay dalka dukaan ay leeyihiin oo ay macaash ku raadsadaan taas oo si weyn u dhibtay kooxda heego maanta dawladda Muuse Biixi ma shaqaynayso dalku uu taagan yahay wuxuu ka dhigay dalkii family business buu ka dhigay qoys bakhaar uu leeyahay qoys buu ka dhigay dawladdu waxa weeye wasaaradaha leedahay DGA leedahay baamushari baa ku nool wixii oo dhan inuu family-giisa ka dhigo oo inoo kala socnaan jirtay siyaasadda iyo business-ka iyo family waa inoo kala socnaayeen hadda waxa isku qasan qoyskiisii raaskiisii iyo waxa isku qasan business-kii oo waxa wixii shaqadii wasaaradda oo dhan isaga haya wasiir qoro talaabo qaadi karaa sidoo kale xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa siyaasiyiinta dheergaradka ay ku jira waxa ay ka hadleen kooxdan abaabulan ee ku habsatay dawladnimadii Somaliland afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani Barkhad Jaamac Batuun ayaa shacabka Somaliland u soo bandhigay kooxda heego ee xurtada ku haysata nidaamkii dawladnimo iyo ujeedooyinka ugu waaweyn ee ay u taagan tahay dalkan inuu u baahan yahay badbaado truly speaking runtii sababtan taawlay waxa weeyaan nidaamkeeni dawladeed
waxa ka dhex abuurmay oo aan laba iskeli karayna dawladdu adeeg daleed iyo dadeed bay fadhisay laakiin group baa dilaacay oo nidaamka dawliga ah ku dhex qarxay oo kuwaasi magac la baxay leeyahay heego wada la wada yaqiina madaxweynaha laftirkiisa gurmad u baahan oo tiimka heegeen looga gurmado u baahan oo aan waxa weeyaan meherad laga macaasho maamulkii dawladnimo ka dhigtay qofka doonaana باورك الدولة دو adeegsanay oo xidhaya qofkay doonaana mashaariic ku qasba maxay yihiin mashaariicda ay gacanta ku hayso kooxda heego gudida qandaraasada ayaa noqday mid ay gacanta ku hayaan xubno kamid ah kooxda heego si ay u marsadaan mashaariicda ugu waaweyn ay lagama maarmaan ka noqoto in la shaaciyo si ay sharciyada u waafajiyaan kooxda heego waxay samaysteen shirkad dhisme oo lagu magacaabo Asli Construction Company taas oo loogu magac daray inan kamid ah hablaha Muuse Biixi waxaana mulkiile ka oo ku qoran Ridwaan Cabdiraxmaan oo hogaamiye Muuse Biixi Abdurrimo u yahay iyo Maxamed Muuse Biixi oo ah shakhsiga gacanta ku haya mashaariicda dhismaha ee hadba shirkadu fulinayso mashaariicda shirkadani qaadatay ee aan cidna loo soo bandhigin waxa kamid ah dhismaha xafiiska hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga dhismaha xafiiska xeerlaalinta guud dhismaha madbacadda qaranka waxa kale oo jira qandaraasyo dib u dhis xarumaha hay'adeed oo ay shirkadani qaadatay waxaana kamid ah dib u hagaajinta guriga madaxweynaha ee madaxtooyada dhexdeeda dib u dhiska iyo dayactirka garoonka Timcade dib u dhiska iyo dayactirka xarunta wasaaradda maaliyadda xarunta xisaabaadka guud iyo sidoo kale xafiisyada hanti dhowrka guud ee qaranka dayactirka wasaaradda gaadiidka dayactirka wasaaradda waxbarashada iyo dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay sidoo kale waxa jira qandaraasyo dhisme oo lagu fuliyay ciidanka qaranka kuwaas oo ay isla shirkadani ku fuliso shaarka ciidanka iyadoo aynu ogsoonahay in ciidanka qaranka Soomaaliland lahayn shirkad dhisme waxaana kamid ah dhismayaashaasi dhismaha madaxtooyada cusub dhismaha madaxafka qaranka ee laga hirgelinayay agas khayriyadii hore dhismayaasha lagu kordhiyay taliska guud ee ciidanka qaranka mashaariicda dhismayaasha oo aad u farabadan darteed waxa jirta shirkad kale oo dhisme laguna magacaabo Al Yusuf Construction wakiilna uu ka yahay taliye ku xigeenka ciidamada RRU-da Khadar Buraale Koode iyo sidoo kale injineer Maxamed Ismaaciil oo ah qaraabada dhow ee hogaamiye Muuse Biixi kaas oo mashaariicdana lagu qaatay magaciisa shirkadan ayaa qandaraasada ay qaadatay waxa kamid ah dhismaha xarunta ciidamada ilaalada madaxtooyada dhismaha deyrka xerada ciidanka ee Birjeex dib u dhiska dayactirka iyo hagaajinta madaxtooyada wiilka awoodda badan ee uu dhalay hogaamiye Muuse Biixi waxa uu dadaal ugu jiraa in muddada uu xilka ugu sareeyo qaranka haya aabihii uu noqdo mid kamid ah ganacsatada ugu dhaqaalaha badan la dalka waxaanu hirgelinta qorshahaasi u marayaa inuu qaato mashaariic badan oo faa'iido u leh mashaariicda uu ilaa hadda qaatayna waxa kamid ah direyska iyo kabaha ciidanka qaranka Soomaaliland oo uu qaatay sanadkii labaad oo xidhiidha mashruuca qodida macdanta ee gobolada Saaxil ilaa Saraar mashruuca keenida sibirka ay dhismayaasha dawladdu u baahan yihiin kaas oo laga soo iibiyay wadanka Cumaan keenida shidaalka baabuurta oo ay shiraaka ku yihiin Mustafa Gacmo Dheere oo dhinaca kalena ay xidid dhow yihiin iyadoo ay xusid mudan tahay in maamulkii hamaha shidaalka laga qaaday ganacsatada isla markaana loo gacan galiyay si ay ugu adeegtaan mashaariicda kale ee uu qaatay Maxamed Muuse Biixi waxa kamid ah keenida mashruuca Singapore Silik ee ardayda shaqo qaran la sheegay in laga shaqaaleysiinayo oo ahayd shirkad been abuur ah aakhirkiina ka dhacday 5 milyan oo dollar oo ahayd hantida shacabka Soomaaliland shirkadda Sunpower oo uu ku yeeshay saami dhan 13% kadib markii Muuse Biixi uu shirkadaasi u jeediyay inay saami siiyaan wiilkiisa haddii kalena uu dalka Kenya shirkad laga leeyahay China oo inankiisu wakiil ka yahay taas oo bixin doonta adeega korontada ee dalka sidoo kale wiilka uu dhalay hogaamiyaha Soomaaliland lagu magacaabo Maxamed Muuse Biixi ayaa kulan khaas ah oo magaalada Addis Ababa kula qaatay wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Itoobiya Axmed Shide waxa uu ku soo bandhigay qorshe uu aabihii u dejiyay oo uu ku qaadanayo mashaariicda ka dhalanaysa jidka Berbera Corridor ee Itoobiya u adeegaya sida ay sheegeen warar Hardnaag News heshayna wiilka hogaamiye Muuse Biixi ayaa waqti uu Itoobiya ku sugnaa waxa uu la kulmay wasiir Axmed Shide oo dawladda Itoobiya u qaabilsan heshiiska dekada Berbera iyo mashaariicda Berbera Corridor kaas oo hordhigay qorshe uu wasiir Axmed Shide ka warhayay maadaama uu hogaamiye Muuse Biixi hore ugu sii bilaamiyay wasiir Shide in wiilkiisa uu kala shaqeeyo qorshaha uu la iman doono kuwaas oo salka ku haya sidii Maxamed Muuse Biixi loogu gacan galin lahaa mashaariicda ka dhalanaysa marka Itoobiya alaabteeda ka guranaysa dekada qalalan ee Wajaale iyo sidoo kale dekada magaalada Berbera gudoomiyaha shirkadda Sagaljeed Cabdi Yuusuf Aar oo kamid ah xubnaha culus ee kooxda Heego ayaa mashaariicda uu qaatay waxa kamid ah mashruuca eegista tayada baabuurta soo degaysa oo ay wada qaateen xiis Saleebaan oo ay saaxiib dhow yihiin mashruuca daabacada iyo sameynta agabka ay u baahdaan hay'adaha dawladda oo dhami mashruuca raashinka iyo timirta ciidanka qaranka oo sanadkii labaad oo xidhiidha u qaatay mashruuca dhagax dhiga dekada Berbera oo ay wada qaateen gabadh ay walaalihiin xaaska yar ee hogaamiye Muuse Biixi iyadoo uu qayb ka yahay xogayaha
mubaarak ismaaciil taani xogayaha madaxweynuhu waa shakhsi xirfad sare u leh musuqmaasuqa iyo leexsashada mashaariic badan isagoo qofka uu doonayo in mashruuc la siiyana ku wargeliyay mas-uuliyiinta dowladda in madaxtooyadu amartay bixinta mashruuca uu la rabo kolba qofka uu wato mas-uulka musuqa diida ee daacadnimo ku maamula waxa uu dadaal dheer u galaa inuu kala qariyo hogaamiye muuse biixi waana qofka inta badan mashaariicda heego isku dubarida iyadoo mashaariicda uu qeybiyo kuwa uu si toosa u qaato iyo kuwa uu qayb ku yeesho mashaariicda ilaa hadda qaatayna waxaa ka mid a mashruuca soo iibinta oksijinta cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo in badan ay dadku ka cawdeen mashruucaasi oo ku kacaya 170,000 oo dollar mashruuca timirta iyo raashinka ciidamada oo uu la qaatay cabdi yuusufar mashruuca shaqo qaran oo miisaaniyadda qaranka looga maalgelinayay mashaariic loo fuliyey oo ay ka mid yihiin dhismayaal loo dhisayey oo ah guryihii ay deganaayeen ardaydu diriiskii iyo kabihii ardayda shaqo qaran habeendhexii ardayda cuntadii iyo huga ay huunayeen ardayda ayaa dhammaantood la siiyey mubaarak taani mashruucii dhagaxdhiga dekada berbera oo ay wada qaateen cabdi yuusufar sidoo kale mashaariicda uu qaatay waxaa ka mid a dhismaha maktabadda gabiiley oo lacaga badan lagu urursaday islamarkaana uu wakiil uga yahay cabdiqaadir camash oo laga shaqo geliyey mashruuca dib u habeynta maaliyadda ee loo yaqaano BFM xubnaha heego waxaa kale oo ka mid a cabdulqafaar maxamuud ciise iyo sidoo kale ciise maxamuud ciise waa laba wiil oo walaalo ah oo ay muuse biixi walaashi dhashay cabdulqafaar maxamuud ciise waa wakiilka shirkadda Ethiopian Airline oo ay shiraako ku yihiin abtigii muuse biixi cabdi oo ku qoran damaanadda shirkadda mashaariicda uu ilaa hadda qaatayna waxaa ka mid a ruqsadda wadamarista oo ay shuraako ku yihiin Ismaaciil Cumar Boobe waana qandaraasidii dadka shacabka laga soo celiyey cabdiqafaar ayaa sidoo kale mashaariicda uu qaybta ka yahay waxaa ka mid a mashruuca soo iibinta madbacadda qaranka oo ay ku baxday lacag gaadhaysa 2 milyan oo dollar kaasoo ay si wada jira u qaateen xogaye mubaarak ismaaciil taani walaalkii cabdiraxmaan maxamuud ciise cabdilaahi gacmo dheere iyo maxamed mataan jaamac oo ah shakhsiga lagu qaatay magaciisa mashruucaasi cabdulqafaar wakiilka diyaaradda Ethiopian Airline waxaa inta badan dib loogu wareejiyay mashaariicdii muwaadiniinta lagala noqday ee madaarka oo uu gacanta ugu dhigay si toos ah iyo si dadbanba mashaariicdaasi oo ay ka mid yihiin ammaanka madaarka cabdulqafaar waa mas'uulka ka dambeeyay in la xanibo diyaaradaha Fly Dubai iyo Air Arabia isagoo kaashanaya abtigii muuse biixi kadib tartan xoogan oo ka dhaxeeyay shirkaddan iyo shirkadda Ethiopian Airline ee uu wakiilka ka yahay kadib markii uu sameystay shirkad goysa tigidhada diyaaradaha waxaa kooto loogu xidhay tigidhada dhammaanba mas'uuliyiinta dowladda waqti kasta ay dibadda u safrayaan kuwaas oo aan meel kale ka goosan karin tigidhada waxaa kale oo uu qaabilsan yahay keenida iyo soo kirinta diyaaradaha khaaska waqti kasta oo ay dowladdu u baahato ciise maxamuud ciise waa agaasimaha waaxda dhulka iyo guryeynta ee wasaaradda howlaha guud una qaabilsan madaxweynaha arrimaha dhulka isaga oo u soo tirakooba dhulalka danta guud si gaarana ugu qoran dhulka kaltuun xaaji daahir marwadii madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo dhulka buurta kala jeexan ee galbeedka hargeysa oo ay dad badan oo masaakiin ahi degan yihiin u soo diro iyo inankaad abtiga u taacilisaa tiraa habeen walba soo cabir dhulkeeda iyo GPRS igu soo sawir GPS-ka igu soo sawir dhulka kaltuun dusha iga soo sawira furayaasha u soo diro idinka degdegayo nafta doojinayo diihaal la sahaye bilowgii xukuumadda hogaamiye muuse biixi waxaa ka fashilmay qorshe uu doonayay inuu kaga soo wareego wasaaradda howlaha guud isla markaana uu ku noqdo agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda kadib markii xil wasiir oo geed sarawaaba loo magacaabay maxamuud axmed cawad oo ahaa agaasimihii waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda 27kii bishii February ee sanadkii 2018 oo ku beegneed 3 bilood kadib markii muuse biixi loo dhaariyay madaxtinimada dalka ayuu agaasime ciise qaaday tallaabadii koowaad kadib markii uu si badheer u joojiyay dhul laga qorsheynayay buurta kala jeexan kaas oo ka baxay gacanta dowladda hoose isla markaana ilaa hadda aan la ogeyn cidda uu ku dambeeyay mustafa gacmo dheere waxa uu ka mid yahay xubnaha kooxda heego mashaariicda uu ilaa hadda qaatayna waxaa ka mid ah waxa uu kooto ku xidhay keenida shidaalka maraakiibta waxa uu la wareegay shirkadda Maritime Security Service ee diiwaan gelisa maraakiibta hubka sida sidoo kale waxa uu qatay mashaariicda soo iibinta qalabka neefsashada ee xanuunka COVID-19 oo la amray wasaaradda caafimaadka isla markaana ay kula jiraan xubno kale oo muhiim ah oo ka tirsan qoyska hogaamiye muuse biixi marwarooda axmed cumar waa xaaska yar ee hogaamiye muuse biixi marwadan oo noqotay sanadadan dambe awoodda kala hagta mashaariicda iyo bililaqada boobka qoysku ku urursanaya hantida ummadda waxa ay si toos ah u maamushaa hay'adaha dowladda qaar ka mid ah sida wakaaladda biyaha hargeysa hay'adda kaydka raashinka qaranka cisbitaalka guud ee hargeysa dhakhtarka maas ee caruurta iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka mashaariicda ilaa hadda ay kala dabartayna waxaa ka mid ah mashruuca biyagelinta caasimadda oo ku kacay 22 milyan oo dollar mashruucaasi oo ay u qaybisay wiilkeeda maxamed muuse biixi wiilka ay aayada iyo eedadaba u tahay ee cabdulqafaar iyada oo qayb yar oo ka mid ah mashruucaasina shacabka la soo dhex dhigay
mashruuca soo iibinta qalabada xanuunka COVID-19 oo ay siisay inanteeda curad hodan muuse bixiye sidoo kale seegada Mustafa Gacmo Dheere sidoo kale marwadu waxay gacanta ku haysaa qaybinta iyo kala dabarka raashimada macaawinooyinka ee gobolada iyo degmooyinka dalka ee ay fulinaysaa hay'adda kaydka raashinka qaranka iyadoo oo gobolada qaar sida Gabiileyna sheegtay in la leexsaday raashinkii ay xaq u lahaayeen in la gaarsiiyo dadweynaha gobolkaasi mashaariicda caafimaadka waddanka inta badan waxa maamusha marwada oo gacanta ku haysa halka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadkuna uu yahay gacan yare wasiirkii wasaaraddaasina la taseeyay mashaariicda kale ee qoyska madaxtooyada waxa kamid ah Deeqa Axmed Cumar oo ay walaalayihiin marwada yar ee hogaamiye Muuse Bixi ayaa waxay qadatay mashaariic ay kamid yihiin dib u dhiska iyo dayactirka qolka nasashada ee madaarka magaalada Hargeysa kadib markii hudheelka Summertime laga wareejiyay dalabka casuumadihii madaxtooyada qaranka taas bedelkeeda waxa la wareegtay Deeqa Axmed Cumar sidoo kale waxa ay qaadatay mashaariicda dib u dhiska iyo dayactirka loogu sameeyay guryaha madaxtooyooyinka ee Hargeysa Burco Boorama iyo sidoo kale Berbera maxaa ka jira hay'adii shaqaalaha dawladda shacabka Soomaaliland waxay in badan maqleen qayladaan joogto noqotay oo marar badan ka soo yeeraysa shaqaalaha dawladda kuwaas oo loo haysta afkaarahooda oo ay ku soo bandhigeen baraha bulshada kooxda heego gaar ahaan qaybteeda la socodka baraha bulshada ayaa markan dhex fadhiisatay hay'adii shaqaalaha dawladda iyadoo oo si dadban hoggaanka hay'adda looga wareegay Farxaan Aadan Haybe oo haatan noqday mas'uul ugu dul maamula hay'adii uu madaxda ka ahaa Iid Muuse Maxamed oo ka soo jeeda jufada hoose ee hogaamiye Muuse Bixi ayaa markan gacanta ku qabtay maamulka hay'adda shaqaalaha dawladda isagoo oo si aan toos ahayn loogu gacan galiyay hay'adda maamusha in ka badan 16,000 oo shaqaalaha dawladda balse ay haatan si cad u muuqato inuu gudanayo ujeedada ugu weyn ee laga lahaa in la hoos keeno howlwadeennada qaranka Farxaan Aadan Haybe oo shaqadiisii la gacan togaaleeyay ayaa keentay in shirarka sare ee hay'adda shaqaalaha uu gacanta ku qabtay Iid Muuse kadib markii uu hogaamiye Muuse Bixi si dadban ugu gacan galiyay halka uu gudoomiyihii ku magacaawnaana ku shaqeeya amar la siiyo taas oo ay cadeeyeen shaqaale ka howlgala hay'addaas oo ka cudur daartay in magacooda la shaaciyo kadib howlgelinta Iid Muuse ee hay'adda shaqaalaha dawladda waxa bilaabantay in baraha bulshada si toos ah looga dabagalo shaqaalaha ka howlgala dawladda isagoo gacan ka helaya xubno kale oo la shaqeeya waxa uu suuro gashay in howlwadeeno badan ay ku waayaan shaqadoodii aragtiyaha ay ku soo bandhigayaan baraha bulshada taas oo keentay in shaqaalaha dawladdu ay cabsi ka qaadaan cabirka fikirkooda ee ay ku soo bandhigi lahaayeen baraha bulshada iyo faallaka bixinta aragtiyaha kale mushaharka kooban ee xukuumaddu siiso shaqaalaha dawladda isla markaana ka soo baxa cashuurta dadka shacabka ayaa noqday midka ugu weyn ee loogu hanjabo muwaadin shaqaale dawladeeda oo fikirkiisa la xiriira dhaliilaha xukuumadda ku cabiray baraha bulshada si ay shaqaaluhu ugu hogaansamaana waxa la soo saaray amaro uu Farxaan Aadan Haybe maqaarsaar ugu qoran yahay magaciisu kuwaas oo la duldhigay shaqaalaha dawladda iyadoo guud ahaanba laga qaaday xaqii uu dastuurku u siiyay cabirka fikirkooda marka la eego howlaha ilaa hadda fulina waxay u muuqataa in kooxda heega ay haysato tubti ay ugu tala gashay inay ku gumayso shaqaalaha dawladda ee la siiyo mushaharka aadka u kooban ee ka yimaada cashuurta shacabka waxaanay hay'adda shaqaaluhu sugaysaa in lagu soo noqdo sharciyadii ay ku aasaasan tahay si ay shaqaaluhu u helaan xorriyadda hadalka ee ay xaq u leeyihiin agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abukar waxa uu ka mid yahay kooxda heego isla markaana waxa uu safka hore kaga jira xubnaha sida weyn uga macaashay mashaariicda dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abukar Maxamed ayaa leexsaday lacag gaaraysa $400,000 oo lagu horumarinayo waxbarashada reer guuraaga agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa lacagtan marsaday NGO uu gaar u leeyahay kaas oo uu siiyay mashruuc lagu horumarinayo waxbarashada xaaladaha degdega mashruucan oo ay fulintiisa qaadatay hay'adda UNICEF isla markaana laga maalgelinayay sanduuqa waxbarashada ayaa hay'adda UNICEF iyadoo kaashanaysa agaasimaha guud waxay qandaraas hoose siisay ururka Soyka ee uu agaasimuhu leeyahay iyadoo oo loogu talagalay inuu mashruucan ka fuliyo gobolada Saaxil Gabiile iyo Maroodijeex mashruucan oo ay ku baxaysa lacag gaaraysa $6.7 milyan waxa ay bishii February ee sanadkan 2020 hay'adda UNICEF u shubtay ururka Soyka ee agaasime Axmed Abukar uu ka yahay mulkiilaha qaybtii koowaad ee kharashaadka fulinta mashruuca oo dhan $400,000 ururka Soyka oo xarintiisu guud ay tahay magaalada Berbera ayaa waxa aasaasay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada waxaana hadda maamulka ururka u haysa walaashi Khadra Abukar mana aha markii ugu horeysay ee agaasime Axmed Abukar uu ururkiisa seeko u sameeyo gacalmiis iyo musuqmaasuq hase yeeshee sanadihii 2006 ilaa 2012 oo agaasimuhu madax ka ahaa mashruuca waxbarashada ee hay'adda Save the Children ayuu sidan oo kale musuqmaasuq sameeyay isagoo oo gaarna u nasnuujiyay qadaraasina siiyay ururka Soyka taasoo sababtay in aakhirkii ay hay'adda Save the Children ay shaqadii ka irido kadib markii uu cadaaday musuqmaasuqa uu sameeyay daawadayaal muddo 3 bilood oo aanu baadhis ku haynay inaanu ogaano isla markaana ummadda Soomaaliland u soo bandhigno cidda ay tahay kooxda heego
guud ahaan baa xogtii soo gaadhay Hawnaag News waxay iftiimisay 22 qof ee aanu magacyadooda soo bandhignay iyo mashaariicda ay xubno ka mid ah u qaateen nidaamka aan waafaqsanayn sharciyada dalka waxaana dhici karta inaanu ka tagnay xubno ka mid ah kooxdan kuwaas oo ay suuragal tahay inaanay xogtooduna soo gaadhin guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaan rajaynaynaa in bulshada Somaliland ay si buuxda u ogaadeen cidda ay tahay kooxda Heego ee muddada badan la sheegi jiray inay ku tagrifalayaan awoodihii dawladnimo ee loo doortay Muuse Biixi isla markaana ay ka taajireen mashaariicda dawladda shacabka Somaliland ayaanan u dhaafayaa talaabada la gudboon ee ay tahay in laga qaado kooxdan qoyska ah ee Heego ee xurtada ku haysata nidaamkii dawladnimo ee Somaliland oo 30 sano ka hor lagu helay halgankii nafta iyo maalkaba loo huray oo haatan kooxda Heego ay qayb ka mid ah shacabka Somaliland u aqoonsan tahay muwaadinka dhalashada labaad second citizenship kaas oo aan xaq u lahayn inuu u tartamo isla markaana ka faa'iideysto mashaariicda dawladda ilaa ay fulaan kooxda ay Heego u taqaana muwaadinka koowaad oo ah guud ahaanba dadka ay isku deegaanka yihiin barnaamijkan waxaad kala socoteen shabakada caalamiga ee Hawnaag News waxaana idiin soo jeedinaya anigoo Cabdirasaaq Good Nuura guud ahaan shacabka Somaliland wixii fikir ee la xiriira talada iyo toosinta waxay noogu soo hagaajin karaan emailka shaashada ka muuqda